muqdisho waa caasimadda Soomaaliya waa magaalo marxalado kala duwan soo martay qiyaas ahaan dadka ku nool muqdisho waxa lagu qiyaasaa inay ku dhow yihiin 3 milyan boqolkiiba 70 dadka ku nool muqdisho waxay isticmaalaan gawaarida BLka ama gawaarida loo yaqaan minibaska magacayga Cabdullaahi Ibraahim Maxamuud waxaan ka shaqeeyaa Madiino ilaa Kaaraan sanadkan ka shaqeeyaa وحلي أرور هريعة وحوكم يدهيد دروالين تكشقية قوالة BLka كدع شقيسة مقدشو halkan waa busteejada suuqleef ee degmada Dharkeeley subax walba ayuu u soo shaqo tagaa waxaanu halkaas uu ka qaadaa rakaabkiisii ugu horeeyay ee gaarigiisii raaca hadda waxaan ka soo dhaqaajinaa busteejada qof kasto anaga naga mid ah meel ay u jihaysan yahay iyadoo ay dadku isugu jiraan dad shaqo u socda iyo arday u socda goobahoodii waxbarasho laamiga ayaan ka soo leexanay wadaha gaariga ayaa weydiiyay sababtu uu laamiga uga soo leexday laamigani waxa way xaafadana nooro intii oo la kala waajiban yahay nacastasna kama baxna xaafadana intaan seebiyaan inaada ka galeynaa dad badan oo reer muqdisho ah si weyn ay qaarkood u egyihiin isku dhacyada marka qaar dhaxmara qofka rakaabka ah iyo beelada muqdisho haddaba marka falkaasi oo kala yimaada sidee loo xaliyaa inay yimaadaanna arrimaha ceenkaani oo kala ah maxaa sabab u ah walaa ku shil lakaan ugu daroy lax ku way mani qofki ma xadeeg wato macnaha kashbooga oo asina oo dho walaalay qofki ku shil ugu dar meesha waxa lacag ka dhiman 2,000 ka dhiman ama 3,000 ka dhiman oo dho macnaha ee qofki oo diido walaalay inta ku raaxay ay dhado أنا درولا معنا أنا دايو معنا صوب أنا دايو معنا كسرت قف كان نقدر عواي وأنا بوجنا قف كان كسر عندها sida maalmaha ay u kala duwan yihiin ay haddana isku mid aheen caqabadooyinka soo wajaha darawaliinta muqdisho qaar baa la daris ah caqabadooyinka halka qaar markay caqabadooyinka ceenka ay soo wajahaan waxa ay sameeyaan waxyaabo badan oo markaas caqabadaha ay uga hortagaan muqdisho waa magaalo la daris ah xirnaanshaha wadooyinka oo aan hore loo sii ogeysiin dadka yaarintan sida weyn ay u taabanayso beelada ka shaqeeya muqdisho qaarkood ayagoo wanmoog ah ayay ku soo dhacaan wadada xiran qaar waxay isticmaalaan wada aan wanaagsaneyn balse dib kasto ay maraan waxa ay tagaan halka ay doonayeen ama ay rabeen rakaabka gaariga u saarnaa haddaba su'aasha isweydiinta mudana ayaa ah saameyn intee leeg ayay darawaliinta muqdisho ay ku yeelataa xirnaanshaha wadooyinka ma marka qaar si degdeg ah u xirma زايد إنه ويلا تانية وعواي وضدي كحرن وعواي وضدي فرنا كسر حساتمه وضدي ومعناه أو فرنا كسر حساتمه هذا اسمك وحرمه هذا مدة كلا تي فرنا هذا أيضا ولا حري وعواي أنت قبل أنت قبل عشان كويس زيادة ما شاء الله أنا كوش قجرت صدنا هوني ما شاء الله تشن أكوش قيلسي أفرتنا هوني مربو واسي مربو عواي والله سامي زايد إنه ويلا تانية shaqada ceenkaani oo kala ah ayaa marnaba laga weyn isku dhacyo laakiin waxa lagu kala duwan yahay sida loo xaliyo hadba siday u kala duwan yihiin isku dhacyadu marka ay timaado sheekadan oo kale darawaliinta muqdisho waxay ku kala duwan yihiin sida loo xalin lahaa haddaba marka ay soo wajahdo dhacdadan oo kale isku dhacyada rakaabka iyo krishbooyga ama raaxa gaariga sidee xal loo helaa ama lagu xaliyaa
isfahanku waa muhiim wada shaqayntu waxay keentaa guul dadaalkuna wuxuu keenaa kamir dhalinta wixii markaa loo socday raraha gaariga iyo darawaliinta wada shaqayn intee leeg ayaa ka dhaxaysa kirshboogan iyo wallahi qof waxa kirshbooda qaar isma fahansana qaarna darawalka iyo kirshbooga waa isfahansan hadda aniga iyo kirshboogan kale waa isfahansan oo dadka wala macaamilna waxa waaye wala macaamilna saan waa ka dhaco laxan iyo qarraca ugu darnaa sidii baar ku sarnaa ilaahay waxa waaye af Soomaaliya rtaabiyalkan aqli waxa waaye oo farsamo si farsamaysan aan ku adeeganaa marka si farsamaysan ku shaqaysanaa beelada Muqdisho sidee u arkaan mooto bajaajka ka howlgala Muqdisho ma jirtaa caqabado ay ku qabaan والله إني حق لعقتكم معناها وحبوا على فكرة أنت لكن معناها شغلة نحن شغلة وحواي ونقعد بدينه وأيضا السعوداني هل مرة هرت أسكت سوقلايان وأنا نقول عنا أيضا ونقول عن بدنا لكن ونقول عن أنت نكون قد جرنا سمعت البرنامج كان وحينه جوا يقبلنيين إن قبل البيئة كأه إن مجال كشقية أنتو دبدن استاجان برتماه وضده إيجو مركز صوبه حرناشها وضده أي نعد كله أي سنحين waa wax iska caadi ah in adigoo caro iibinayo oo qof macmiil ku soo galay aad ka dhacsiisid in caradaada uu wax ka iibsado sidoo kale waa wax mar waliba dhici kara in aad adiga oo qadatid go'aan ah halka aad kala dooran lahayd gawaarida badan ee marka aad timaado laamiga aad la kulanto balse waxaa si weyn u adag oo aan ahayn mid fudud in qofka gaariga aad raraha ama kirishboogu ka tahay ka dhaadhicisid inuu gaarigaaga raaco haddaba ha inoo sharaxo mid ka mid ah kirishbooyada ka shaqeeya beelada Muqdisho sida uu dadka rakaabka ka mid ah ee uga dhadhacsiyo raacista gaarigiisa والله ساعد أنا لحن لي مية وحاول ساعد معنا وصعنا وضنا قرانا كوفونا إيه حضي ولا الكو أنا الماء بريس السورة هذه يفوض جعنتها برنامج للقصار هذه gawaarida beelada Muqdisho ka shaqeeya imise lacag ay ugu yaraan ay ku qaadaan rakaabka gaariga markaa soo raacaya tusaale ahaan markuu qofka rakaabka uu ka soo raaco kelay isla markaana rakaabka uu kaga dago gaariga sanco waxay tahay qiimo kala duwan oo markaas loo qaado haddaba ma jira qiimo haga oo ay rakaabku gawaarida beelka ah ay wada raacaan ama qiimo caadiyan dadku ay wada ogyihiin adiga macnaha 13 14 kuna leeyahay laakiin dadkaas lacagta laga ma qaadi karo kan ugu badan oo ku 10 kuna ku siiha shaki kuma jiro in kirishbooygu uu yahay qofka markaasi sabab u ah in gaarigu uu soo xareeyo lacago maalinta ay shaqeynayaan sidoo kale waxa uu sabab u yahay in maalintaas uusan gaarigu shaqeynin wax lacag ah sababtoo ah maanta oo dhan ayuu qayliyaa gaariga oo socda ayuu ka dagaa asigoo xitaa aan iska eegin hareeraha waddada keliya ay u muuqato qofka gaariga joojiyey ama ishiisu ay aragto asigoo qofka ha u arko inay socoto ama ay doonayso inay gaarigiisu ay raacdo ولداga 6 kun waa galay haana sidee 3 kun kun loogu dargala marmaan هذا قلنا تاجن تاوي معن. قلنا عادي واحد دا كارم بري كسر راع إسكيس. ويلي شغال أنا بريسة برنا نكون كنا قدر قال. أنا هو يدين وكلام أقول. أي هارو وياي. كسك ورا كسك سعد محمد ورا كسك. wuxuu ka mid yahay shacabka Muqdisho ee sida weyn u isticmaalay gawaarida BLka ah wuxuu nala wadaagayaa qiso yar oo dhaxmartay asiga iyo mid ka mid ah gawaarida dadweynaha ay ka shaqeeya Muqdisho aniga horta kulay hal mar ay u dhacay marna ceelash degneen oo qaxi ceelasha waagi oo ceelash degneen Tuuriyaga mar oo aan shaqo u socdo qalqalaan aan shaqo u soo socdi tireedisa u day markii surwaal aan wati macna surwaalkaas group soo ilooy surwaal kala soo gashtay oo lacag ku jiray ninka markaan dhay lacagta ma film ya soo raacay filaandiisii oo dhaxtaa filaandan oo siiro waa islaan tiraasiibin bax shaqada aadana lacag diiwaa shacabka Muqdisho qaarkood ayaa siyaabooyin kala duwan u arka raacista gawaarida dadweynaha Abdi Maxamuud oo ka mid ah dadka Muqdisho ee sida weyn u isticmaala gawaarida BLka ayaana la wadaagay waxyaabaha wanaaga ah ee ku arko BLada iyo waxyaabaha aan wanaagsaneyn ee uu kala kulmayo BLada Muqdisho
shalay kortan ay u dhacday markii intaan ka raacnay inta gaari ka raacay markaan xamroon sii socday boonta koowaad intaan la gaarin oo gaariga meesha u dhigay tan iyo xamroon oo lugeeyna caqabado badan aad ka jira waxa waaye balanku been inta badan oo balan talaayo baxayo marka caqabadaha oo iska jira waa iska tira badan yihiin wanaag waa leeyihiin waxaa ka mid ah hadda mootadan oo kale lama ijaaro karo hadda uu kacdo waa $2 ka kacaysa iyadana 5,000 ku geynaysa